munaasabadan lagu xusiyay 61 sano guuradii ka soo wareegatay helitaankii calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ee maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaa ka qayb galay boqolaal shacab ah iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya. Gudoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo ugu horeen shacabka ugu hambaliyay maalintan ayaa si kulul ula hadlay dadka caadeystay inay gubaan ama ay jarjaraan calanka ummadda Soomaaliyeed. waxaad leedahay waa astaantaada waa adiga wax lagu garanayo waa heertaada marka hadaad jexjexayso hadaad kor u qaadayso adiga storytoryne hadaad jexjexdo hadii aad kor u qaadan ala koriso qaaday min fadlak wa ihsaanak u faham marka aad calanka Soomaaliya aragtay inay tahay astaantaada adiga shakhsiyan aad leedahay oo anagoo dhanna aan wadaagno halka aan ka eegno marka yaana laga taabanin وأمين كيرا دنقلينو عالنكا وحا إسكالي شعبي إيه مواطن كستو سومالي إيه قف كستو أنسيون الجنسية السومالية عالنكا سولي مدحوينها الجمهورية الفدرالية الصومالية مدن حسن شيخ محمود أيا بيني ورك شيغيا إن وحلا بدل يا نقشد عالنكا الجمهورية الفدرالية الصومالية وحنا نسيب درا وياها ندبا ضد إسكا محان كورا دايدون صوماليا أو هذا كوي أو gudoomiyu tilmaamay kamid ah oo dadka Soomaaliyeed inay niyada ka dilaan inay khilaaf u abuuraan iyo maalin walba slogan muxuu ahay dadku ay niyadooda ku xumaata abuuraan bariyahan suuqa waxa la geliyay maxaan ku raadaay internetyada iyo meelaha ay ku jiro calankii waa la bedelayaa xidigtii la bedelayaa kana la bedelayaa waxaan rabaa maanta halka inaan ka cadeeyo warkaas waa been وكنتين عن مال جرين أو أمضي إنه وجه وريني الله تعالى قالي أمضي الصوماليات ما أنت وفرصة وحنربعين أنا وشيء علن كود وعلن كيل تاجي لحية لباتن كي جون كل سجال بقولي لحية munaasabadan xuska 61 guuradii ka soo wareegatay markii Soomaaliya u yeelatay calan rasmi ah ayaa maanta lagu qabtay magaalada tan Muqdisho waxaana jirtay in sidoo kale qaybo badan oo kamid ah gobolada dalka Soomaaliya iyo dunida looga dabaaldegayo 61 guurada ka soo wareegatay aasaaskii iyo xilligii Soomaaliya calankan ay yeelatay Cabdinaasir Maxamed Ali Honkebel TV magaalada Muqdisho.